waan hubaa haddii aad tahay qof Soomaali ah oo qaangaadh ah inaad marar badan u soo taagnayd iyadoo inta neef xoolo ah gurigiinna la keenay kadibna birta laga aslay iyadoo looga gol leeyahay duco iyo sadaqo ama munaasabadaha qaarkood sida Ciid al-Adxada. Laakiin waxaa suuragal ah in dad badani aanay ka warhayn in waddamada qaarkood oo ku yaala qaaradda Afrika carruurta la qasho halkii xoolaha iyadoo laga rabo barako iyo in ilmaha la qashay uu qoyskaa u sababi karo qaninimo, caafimaad iyo nolol wanaagsan. Haddaba inkasta oo masiibadani ay saamaysay waddamo badan oo qaaradda Afrika haddana carruurta reer Uganda ayaa ah dhibanayaasha ugu badan ee ku naf waaya ama ku naafooba dhaqankan laga yaabo in aad maqalkiisa la fariirsan tahay. Waa dhaqan soo jireen ah oo gobollo ka mid ah dalka Uganda muddo dheer ka jiray. Waxaa jira sixir-roolayaal ama go'aano ay dadka deegaanadani aaminsan yihiin inay yihiin wadaaddo barakaysan oo Ilaahay ula hadli kara si ay u helaan muraadkooda. Wadaadadaas oo iyaguna dhankooda dadka u yimaada ku xidha shuruudo ay ka mid yihiin inay keenaan ilmo carruur ah oo loo sadqeeyo si uu sadqada ilmaha beddelkeeda u siiyo muraadkooda oo ay ugu horreyso hanti, qaninimo iyo caafimaad. Carruurta ku dhaqan deegaanada la jaarka caasimadda dalka Uganda ee Kampala ayaa wajahaya khatar ay ugu jiraan inay afduubtaan wadaadada carruurta sadqeeya ama dadka wadaadada barakada u soo doontaa oo barakada iyo barwaaqada lagaga xidho inay keenaan ilmo loo sadqeeyo. Carruurta wax ka barata iskuullada deegaanadan ayaa waxaa khasab ah in waalidka ama macallimiintu ay dugsiga u sii raacaan isla markaana ka soo celiyaan. Waxaana waddooyinka ku yaala calaamado kaaga digaya khatarta afduubka carruurta sadqada loogu talagalay oo ay dhici karto in ilmaha weerar lagu soo qaado sida ay BBC-du ku warrantay. Sadqaynta carruurtu way sii kordhaysaa waxaana sababay adduunyo iyo lacag jacayl dadkii ku dhacay. Sidaa waxa BBC-da u sheegay mid ka mid ah wadaadada diinta Masiixiga ee ka howlgala deegaanadan. Wadaadkan ayaa waxaa kaloo uu sheegay in sadqaynta carruurtu ay noqotay sidii ganacsi oo kale iyadoo dadku ay keenayaan carruuro loo sadqeeyo si ay u helaan lacag iyo qaninimo. Booliiska Uganda ayaa sheegay in sanadkii 2006 ay baadheen ilaa 38 kiis oo ku lug leh carruur la sadqeeyey. Sanadii 2008 ayaa sidoo kale waxa ay baadheen 25 kiis. Haddaba warbixin ay BBC-du qortay ayaa sheegaysa inay jiraan ilaa 900 oo kiis oo la xidhiidha carruur la sadqeeyey kuwaasi oo ilaa hadda aan la baadhin musuqmaasuq iyo maamul xumo booliiska Uganda haraysay awgeed. Nin aanu beri wada shaqayn jirnay oo lagu magacaabi jiray Xasan Sacdi oo reer Uganda ahaa ayaa ii sheegay in mid ka mid ah hablihii ay yaraantoodii dugsiga isku raaci jireen ay maalin maalmaha ka mid ah dugsiga ka waayeen. Markii dambana ay ku war heleen in inantii yarayd la sadqeeyey. Inkastoo Xasan aanu ii sheegin in cidda sadqaysa ay tahay waalidkeeda ama la afduubtay, maadaama oo mararka qaarkood ay dhici karto in waalidku ilmo carruurtooda ka mid ah ay u geeyaan wadaadadan sixir-roolayaasha si loogu sadqeeyo, taa beddelkeedana ay u helaan qaninimo, caafimaad iyo maal adduunyo. Haddaba dhacdada lala anfariiray ayaa dhacday xilligii lagu jiray doorashooyinkii dalka Uganda, xilligaasi oo la sheego in la sadqeeyey ilaa 6 carruur ah oo ay sadqeeyeen dhinacyada iskaga soo horjeeda doorashada iyagoo aaminsan in musharaxiintoodu ay barako iyo nasiib wanaag ka heli doonaan sadqaynta carruurta sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee loo sadqeeyaa carruurta? Ma sidii xoolihii
ayaa la qowracaa mise wax kale ayaa lagu sameeyaa? aan kaaga jawaabe, ilmaha ayaa la soo qabanayaa, kadibna waxaa loo geynayaa wadaadka gohaanka ah, kaasi oo ilmaha oo nool ka jaraya dhammaan xubnaha muhiimka ah sida sanka, dhagaha, gacmaha, xubinta taranka iyo meelo kale oo muhiima. waxaana dhacda in ilmuhu nafbaxo kadib silic iyo xarbi badan. dowladda Uganda ayaa wada dadaallo aan guulo badan gaadhin oo sadqada carruurta lagaga hortegayo, waxaana jira ugu yaraan dad loo xidhay kiisaskan.